xirfadleyda halkan fadhida iyo bahda warbaahinta iyo dhammaan cid kasta oo howlkan ka soo qabshay waxaan ku salaamayaa marka salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad waxay maanta runtii muhiimad u leedahay Soomaaliya Puntland in la soo bandhigo xogta ku saabsan cudurkan of Mareykanka Dr. Shacali baa sharaxay of Mareykanka siisa muxuu yahay waxaa laga yaabaa dad badan oo halkaan fadhiyeynaysa amba pneumonia laga hadlayo afka qaraad lagu sheegayo ama of Mareykanka siisa muxuu yahay marka koowaad waa infection ama cudur ku dhaca neef mareenka neefmareenkaas ka bilowda inta neeftu marto sanka ilaa sanbabada hoos inta u dhaxaysa waxyaalaha keenana way badan yihiin wuxuu noqon karaa viral infection oo wax la yiraahdo bacteria wuxuu noqon karaa wax la yiraahdo fungal waxyaalo badan ayaa keena sidaas la alligeed maxaa marka muhiimad gaar loo siiyey sanadii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday xogta la hayo sida daayo Maxamed Abdulqaadir ugu horeeyay uu sheegay in sanadkii 2016 carruur Soomaaliyeed oo gaaraysa 17,000 ka badan inay u dhinteen xogtaasna waxa laga helay xarumaha caafimaadka maadaama tirada inta dhan 17,000 oo qof waxaa laga yaabaa xabad inay sidin laakiin 17,000 oo ilmo Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan ku nool inay halka cudur u dhinteen waa wali ilmaha 5 sano ka yar arrintaas marka waxay muujinaysaa inay tahay arrin u baahan in qayladaan laga sameeyo cudurku dadku ku dhacay oo ilmaha 5 sano ka yar boqolkiiba 13 kaliya ayaa waxa la geeyay xarun caafimaad halkaasna waa mas'uuliyad kale oo runtii shacabka ama hooyooyinka aabbaha waalidiinta ilmihii markuu xanuunsado hargab baa ku dhacay baa la dhahayaa laakiin inaan la geyn xarumihii caafimaadka boqolkiiba 13 kaliya boqolkii 87 kale waxay ku dhinteen inta aan la geyn xarumaha caafimaadka taas baa keentay marka bal in la wacyi geliyo bulshada la yiraahdo ilmaha 5 sano ka yar cudurrada ugu badan ay u dhintaan waxaa ka mid ah cudurkan of Mareykanka ama pneumonia loo yaqaan oo ah infectionka ku dhaca neefsashada oo sababada hadday noqon lahayd iyo inta ku halmaasha waxyaalaha lagu garanayo Dr. Cali baa sheegay waa wax si bala ilmahan hadduu qandho yeesho neefsashadiisa ay dhibayso burukiitu qaabay sababta Soomaha burukiitadaas way waxa dilaysaa ilmaha neefsashada wuxuu bobsiiska uu bobsiinayo waxa xiran hawadii meelaha neefsashadu mareysay taas ayaa marka waxa keenaysa in ilmihii uu si degdeg ah u dhinto neefsashada waxa isbedelay oxygenkii iyo carbon dioxide-kii meelaha isku bedeli lahaayeen ayaa infection ku dhacay saas laadeed inay neefsado ilmuhu rabaa kadibna wuxuu bobsiinayaa neefsashadii qodobka labaad cudurkaas maxaa laga hortagi karaa very simple weeye waxaa laga hortagi karaa qof kasta ilmo kasta uu ku dhaco cudurku marka ugu horeysa xarun caafimaad in la geeyo xarunta caafimaadka ilmihii waxaa lagu daaweyn karaa wax ka yar potency macnaha $1 wax ka yar sharabo antibiotic ah oo nooca ku habboon ah oo ka yar $1 ayaa lagu daaweyn karaa waxaa marka suurtagal ah ilmo lagu daaweyn karo wax ka yar $1 inuu u dhinto muxuu ahaa daawadaas haddii ilaahay qadaro laakiin sida cilmibaaris u sheegayaan haddii ilmahaasi nooca uu yahay marka la ogaado infectionka noociisa antibiotic haddii la siiyo inuu dhaqso u daawaabo ayaa suurtagal haddii lahayd qodobka labaad oo laga rabo muxuu ahaa dowladdu inay mas-uuliyad iska saarto waxa weeye waxyaalaha laga hortegi karo tallaal bay leedahay cudurkan of Mareykanka tallaalkiisa BCV la yiraahdo ama pneumococcal vaccine Soomaaliya weli lagama hirgelin sabab waxaan ognahay 30 sano ugu dambeysay wadanka aynu ku jirnay burbur
laakiin 15 sano ugu dambeysay caafimaadka wax badan laga qabtay gaar ahaan 10 sano ugu dambeysay waagii hore talaalkiisaba waxaa bixiya adduunweyne ama qolooyinka la yiraahdo caalamku ay sanduuq ay u sameeyeen in talaalka adduunka dhan laga gaarsiiyo shuruudo ay u sameeyeen shuruudahaasi 3 sano ka hor mid ayaan ku guuleysanay oo ahayd waagii hore 6 xabo salaamo talaali jirin ma hadda laakiin taa la talaala sagaal waxay ahayd in tiraacayan markaa ka gaartay talaalkaada oo tiraad ilmihii boqolkiiba intaas baa talaalay in sanduuqaasi uu dawladdaas u ogolaado in talaalka kale loogu daro hadda wadamada adduunyada qaarkood qayb ilaa 15 cudur la talaalaa mid walbana shuruud ayuu leeyahay waxay leedahay hadiisa in hal hoolkaan hadda ka hor lagu daafuray Soomaaliya in loo ogolaaday talaalka beta vaccine-ka la yiraahdo oo isku jiray muxuu ahaa hepatitis-ka iyo saddex nooc isku jiray oo kii hore oo 6 ahaa 9 markaas ay Soomaaliya gaartay qodobka labaad oo hadda aynu rabno inaynu u saaciyno oo waxaan u soo bandhignaa waxa weeye in talaalkii tobnaad aynu helno talaalka tobnaad oo ah kan cudurkan pneumonia ama of-mareenka lagula diriray oo loo yaqaan BCV-ga laakiin hal sharti ayuu leeyahay halka sharti uu leeyahay waxa weeye in caruurta Soomaaliya ku nool boqolkiiba 70 talaalkaas 9 hore loo siiyay la soo gaarsiiyo oo la talaalo laakiin xageeynu marka ka mareynaa waxa rabaa inaan kala qaado Soomaali weyn iyo Puntland Soomaali weyn boqolkiiba 70 marka la isku wada daro wadamada dhan waxay maraysaa boqolkiiba 42 maxayna ka dhiman boqolkiiba 22 Soomaa 22 boqolkiiba 22 halkaas marka shardigaas wili waa ina haysta oo qolooyinkan donorska ama deeqbixiyaasha ama adduunka sanduuqan caalamka talaalka bixiya in talaalka pneumonia-da ama of-mareenka Soomaaliya la siiyo waa in caruurta Soomaaliya joogta oo hadeer boqolkiiba 42 la talaalay boqolkiiba 22 kaas la soo buuxiyo si boqolkiiba 70 marka loo gaarsiiyo talaaladaas loogu daro in loo ogolaado in ay la siiyo talaalka BCV Soomaaliya halkaas inuu kala mareynaa laakiin farbaa noo taagan haddaan nahay Puntland farta noo taagan waxay tahay cilmi baaris la sameeyay ama sarfeey sahamadii la sameeyay waxay cadeeyeen Puntland inay hadda marayso boqolkiiba 64 maxayna ka dhiman 6 baa dhiman hadda marka waxaan ku dadaalaynaa in 6daas aan dhahno boqolkiiba 64 maadaama soo gaarnay 6daas wadan burburay baynu ku jirnaa in muxuu ahaa lagu dulqaato Soomaaliyana waxa la yiraahdo si gaar ah oo tijaabo ah Puntland lagu bilaabo halkaas baynu u saciyeynaa boqolkiiba 64 6daa ka dhiman in uu dadaalo waxyaalaha marka fariinta rabay ee gudbiyo waxay tahay 3 qodob qodobka koowaad in ilmo kasta oo u baahan talaal xarumaha caafimaadka in la geeyo laba faa'iido laga faa'iideeyo midda koowaad ay tahay in ilmahaasi cudurrada laga hortago talaalka uu ka badbaado midda labaadna ay tahay caruurta Soomaaliyeed oo 17,000 ay u dhimatay sanadihii la soo dhaafay cudurkaan maanta aynu ka hadlayno si ay talaalkii looga hortagi lahaa u helaan oo loo soo qaado waxa la yiraahdo heerka u maraya talaalku ayagana in lagu dadaalo si kuwaas xataa maanta talaalka u baahan ay cudurkaas in laga talaalo ayana ay fursad u helaan qodobka kale aan rabay inaan ka faa'iideysto halkan waxay tahay Soomaaliya waa isku wada xiran tahay marka la fiirsho caalamka wajiga laga fiiriyo haddii aysan isteedyada kale ama dawladda dhexe aysan awood gelin arrimaha caafimaadka sidoo kale waxaynu ahaanaynaa maxay dhahaan farku u taala marka afka Soomaa waa in aynu ka fakarno in caafimaadka gobolada kalena sidii loo hormarin lahaa oo arrimahaas loo soo gaarsiin lahaa meesha hadda gobolada kale ay marayaan boqolkiiba 40 hal Puntland ay marayso boqolkiiba 64 ayadana inaynu ka dadaalno sidii gobolada kale loo soo wada gaarsiin lahaa Soomaaliya dhan adeegaas si u wada hesho
waxyaalaha waxaa jira ku xiran dowladda federaalka matalan tallaalkan oo kale suuqa caalamiga ah waxa ay looga baahan yahay dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadku in ogolaashihii siiso in meel ka mida qayb ka mida Soomaaliya laga bilaabi karo aysan ku xirin inta muxuu ahaa meelo aan tallaalkooda weli soo gaarin heerkii la rabay ama aan la gaarin ama waqti qaadanaysa in la sugo in la isku xiran yahay Soomaaliya waa la isla sugayaa sababtoo ah ilmo Soomaaliyeed oo meel walba Soomaaliya ka yimi ayay ka faa'iideysan doonaa haddii loo ogolaado qayb ka mid ah Soomaaliya in arda laga hirgeliyo qodobka ugu dambeeya waxaan rabaa in halka ugu mahadceliyo hay'adaha caalamiga ah barnaamijkan kala shaqeeya oo hadda ay garwadeen ka tahay hay'adda Save the Children oo runtii hay'adda badbaadada caafimaadka carruurta ay aragtay arrintan ay muhiim tahay dadweynahana ay qayb ka tahay oo runtii arrimaha caafimaadka carruurta ka shaqeysa in aan isla qaadanay in Soomaaliya ay garwadeen ka noqoto sidii tallaalkaas loogu raadin lahaa iyo xoojinta adeega caafimaadka ee carruurta yaryar dilahayd aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkaan runtii marlaad ugu mahadceliyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xarumaha caafimaadka ka shaqeeya iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarinta caafimaadka Soomaaliya oo dhan aad iyo aad baa mahadsantihiin shirkani waa inoo xiran yahay